بسم الله الرحمن الرحيم كلتي وعنا وناكسن daawadayaal soo dhawaada halkan waa Bilan News waxaan idin soo gudbin doonaa taliyaha ciidanka booliiska gaarka ah Koonfur Galbeed taliya Isaaq Maaday oo dib ugu laabtay furimaha hore ee dagaalka kadib safar oo dalka dibadiisa muddo markaasi uga maqnaa xilli uu hanjabaad culus u diray maamulka Adamadoobe ee fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo waxaan idin soo gudbin doonaa ciidamadii ugu faraha badnaa oo markaasi ku biiray safka lafta gareen saacadii la soo dhaafay xaalad kacsanaan oo ka taagan magaalada Baydhabo maamulka Adamadoobe oo xabsiga dhigay haween la sheegay in ay tageen fariisimaha ay duleedka ciidamada taabacsan lafta gareen ku leeyihiin magaalada Baydhabo qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa balse marka waa soo dhawo muuqaalka la igreesina share gareesi dad badan ay xogteena u gaadho saacadii la soo dhaafay waxa soo tareeyay wararka markaasi ku saabsan in maamulka Adamadoobe uu xabsiga dhigay tiro haween oo la sheegay in ay markaasi booqdeen fariisimaha ciidamada lafta gareen ay ku leeyihiin duleedka magaalada Baydhabo taliyaha ciidanka booliiska gaarka ah Koonfur Galbeed ee taabacsan lafta gareen taliya Isaaq Maaday oo dalka dibadiisa muddooyinkii la soo dhaafay ku maqnaa ayaa waxa markaasi uu hanjabaad culus u diray maamulka Adamadoobe xilli uu booqday furimaha hore ee dagaalka ee magaalada Baydhabo taliya Maaday ayaa sheegay in dagaalka markaasi uu u dhaxeeyo oo kaliya maamulka Adamadoobe iyo sidoo kale ciidamada Koonfur Galbeed ee dhinaca lafta gareen waxaana markaasi uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin in shacabka la dhibaateeyo isla markaana laga leexdo dadka birimigeydada ah taliya Maaday ayaa markaasi sheegay in dhawaan ay qaadi doonaan howlgallo waxaana sheegay in ay qorsheenayaan howlgal ballaaran oo loogu magac daray dib u xoreynta deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xaaladda magaalada Baydhabo ayaa saacadii la soo dhaafay kacsanayd kadib markii ciidamada taabacsan lafta gareen ay kordhiyeen dhaqdhaqaaqa ciidan ee ay ka wadaan duleedka magaalada Baydhabo Adamadoobe ayaa saacadii la soo dhaafay qayladaan afka furtay waxaana ka dhawaajiyay in maamulkiisa uu wajahayo cabsi xoogan taas oo uu sheegay in markaasi ay ku hareereysan tahay maamulkiisa khataro kaga imaanaya dhinacyada lafta gareen iyo kooxda al-shabaab waxaana sheegay in haatan markaasi maamulkiisa uu wajahayo khatar xoogan taas oo uu sheegay in uu u baahan yahay gurbad markaasi degdega sidoo kale Adamadoobe ayaa sheegay in xaaladda colaadeed ee ka taagan deegaanada Koonfur Galbeed ay sababtay in gudaha magaalada Baydhabo ay isaga barakacaan dad aad u fara badan waxaana sheegay in colaadda u dhaxaysa maamulkiisa iyo dhinaca lafta gareen ay sababtay barakac kumanaan qoys isla markaana ay ka dhalatay xaalad bini'aadanimo Adamadoobe ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in markaasi dowladda federaalka iyo beesha caalamka uu uga baahan yahay gurmad degdeg ah si markaasi uga soo kabto xaaladda haatan uu wajahayo lafta gareen oo ku sugan magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya ayaa waxa uu muddooyinkii la soo dhaafay karkarinaya qorshe ballaaran oo uu doonayo in uu xukunka markaasi ku dhaafiyo Adamadoobe oo dhawaan loo doortay hogaamiyaha Koonfur Galbeed kadib doorasho markaasi jujoob ahayd oo ka dhacday magaalada Baydhabo oo dowladda federaalka ay markaasi garwadan ka ahayd haddana la soo gaartay dhamaadka muuqaalkan waad ku maasan tahay daawada fadlan muuqaalka la igre sina share gareysay dad badan xogteena u gaadho